madashan oo lagu bogaadinayay isla markaana lagu mahadcelinayay xukuumadda deegaanka Soomaalida ka harimsa go'aankii taariikhiga ahaa ee lagu ballaadhinayay qaab dhismeedka dawliga gaar ahaan maamulka magaalada Harta Sheekha ayay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin heer deegaan oo ugu horeeyay hoggaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida Mudane Cabdiqaadir Rashiid Ducaale wasiirka xafiiska dakhliga deegaanka Soomaalida Mudane Maxamed Cabdi wasiirka xafiiska xirfadaha iyo shaqo abuurka deegaanka Soomaalida Mudane Xuseen Geed wasiirka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha deegaanka Soomaalida Mudane Maxamed Mahdi iyo sidoo kale wasiirka xafiiska gaadiidka iyo ganacsiga deegaanka Soomaalida Mudane Cabdixakiin Sheekh Xasan golaha sharci dejinta garsoorka bahda dhaqanka deegaanka ganacsato aqoon-yahan haween iyo qaybaha kala duwan ee dhalinyarada ugu horeyna bahda dhaqanka deegaanka oo ka hadlay madasha ayaa tilmaamay in qaab dhismeedka deegaanka Soomaalidu yahay mid go'aankeeda leedahay xukuumadda deegaanka Soomaalida dadka iyo dhulka laga dhigan yihiin dad Soomaaliyeed oo mudnaa inay helaan qaab dhismeed dawladnimo. Harta Sheekhu magaalo fac weyn magaalo lafdhabarka u ah dhaqaalaha dalka Itoobiya deegaankeena ma dhaqaalaha dalka Itoobiya in badan dulmanayd in badan ooyeysay in badan soo eegaysay dhanka deegaanka iyo xukuumadda ayay ahayd maanta Ilaahay keenay mar labaad iyo mar saddexaad xukuumaddii garatay ee wasiiradu inagala joogaan waa mahadsan yihiin madaxweynuhu kow ka yahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa inta caabanaysay walaalaheena ee la iloobay ee mudnayd dhankiinay soo eegaysaa in looga jawaabo ayaan codsanaynaa walaalaha cabanayana cabashadooda jigjigay taallaa in adsaba lagu biiro iyo in deegaan kale lagu biiro ma taalo Harta Sheekhuba 30 sano sugaysay waxaan isleeyahay dawladdani way ka dhagan nugultahay 30 sano inagu qaadan mayso waxaan filayaa 30 cisho in dadkana loogu jawaabaan ayaan filayaa waxaan ugu horeyn u mahadnaqayaa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida oo u horeeyo madaxweynaha Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo gartay inay magaalada Harta Sheekha siiyaan maamul magaalo 30 sanadood taariikhdeeda ka bacdi aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay waa garateen waa gudateen xilkiinni waa qaadateen waanan idinku mahadcelinaynaa inta uu qabtay laakiin maanta ama uu sameeyay nacam waa madaxweynihii koowaad ee cadaalad ka sameeyay sida uu u eegay degmooyinka iyo maamul magaalooyinka iyo gobollada uu sameeyay waa madaxweynihii koowaad ee cadaalad u eegay waxaan aad ugu mahadcelinayaa xukuumaddu tallaabada ay qaaday ee maamul dhaweynta ah ee ay ka samaysay deegaanka waxaan leeyahay waad asiibteen waxaanad fuliseen oo aad siiseen meelihii ku habboonaa way jiraan meelo badan oo kale oo habboonaa iyaguna inay tahay talo iyo magacyo helaan laakiin insha Allah waxaan aaminsanahay inay xukuumaddu iyagana u maqan tahay waxaan leeyahay xukuumadda iyo hoggaaminta hadda jirta si gaar ah oo weyn ayaan ugu mahadnaqaynaa xukuumadda uu hadda hoggaaminta iyo garwadeenka ka yahay Mustafa Maxamed Cumar waa madaxweynihii 7aad ama 8aad ee aan hor dhigno tiyo codsi magaalada wax loo doonayo waxa caawa inoo suura gashay oo inuu Ilaahay ugu mahadcelinaynaa 7aad madaxweyne ee hore talaabooyin aan u suura galin inay fuliyaan inay xukuumadda hadda jirta ee uu hoggaanka ku yahay madaxweyne Mustafa Maxamed iyo xisbiga barwaaqo inay suura galiyaan aad iyo aad baan u amaanayaa baahiyaadka ugu faraha badan ee jiray waxay ahaayeen wax noqoshada magaaladaasi talabaad ee laga hadli jiray waxay ahayd biyaha labadii qodobba xukuumadda hadda jirta ayaa fulisay waa mahad si gaar ah aan ugu hayno waanay noo calaamadsan yihiin taariikhduna way qori doontaa dhankoodana hoggaaminta dawladda ee ka soo qayb galay madashan ayaa xusay in bulshada deegaanku si weyn u soo dhaweeyeen arrinkani Soomaalida oo dhan waxay caawa u dabaaldegaysaa soo dhaweynta in Harta Sheekha loo aqoonsado maamul magaalo taas waxay sumad u tahay inaynan dadka Soomaalidu waxba kala lahayn ee wax wada leeyihiin sharaf bay noo tahay hoggaamin ahaan in yar in badan ma aha la dhageystay bulshada deegaanka Soomaalida cabashadeedii soo jirtay
oo ay ka garaabeen maamul magaalooyinkaas gobollada iyo degmooyinka lagu soo biiriyay qaab dhismeedka deegaanka Soomaalida meel la isku haysta maanta oo la leeyahay meesha oo ma qalanta ma jirto taa waxay ku timid jawaabna u tahay daraasad lama sameyn in la dhaho waxa la daraasadeeyay xuduudka waxa la daraasadeeyay dadka aanan codka lahayn in ay cod u noqdaan hogaaminta deegaanka Soomaalida oo ugu horeeya madaxweynaha deegaanka Soomaalida waan ku faraxsanahay in midnimada deegaanka Soomaalida iyo shacabka deegaanka Soomaalida maanta la isu garaabayo la isu codsanayo kuwa aanan baahidooda laga jawaabin in la dhaho odayaashu ay fariin noo dhiibaan oo ay dhahaan cabashooyin baa jiro cabashooyinka laga jawaabo ujeedada qaab dhismeedkan loo balaariyayna waxa weeye koow in cabashada bulshada laga jawaabo labo dadkan codka lahayn in cod loo noqdo deegaan u muuqda in la wada leeyahay in la dhiso ummadda lagu midayo deegaanka Soomaalida muddadii ugu dambeysay isbeddelku ka dhacay shacabka Soomaaliyeed ee deegaankeena ku dhaqan waxay meel kasta iyo goob kasta oo la tago ay ka hadlayeen ama tabashadoodu ahayd in structure-ka ama mawaaqirka ama qaab dhismeedka dawliga ay tabasha ay ka qabeen in la ballaariyo ayay ahayd dawlad ahaan iyo xisbi ahaan waxa la isla qaatay sidii loo ballaarin lahaa inay noqoto si ka turjumaysa baahida shacabku ay qabaan la isla waafajinayo muxuu noqonayaa qaabka loo biirinayaa halkee loo marayaa wadadee loo marayaa iyo qaabkee ugu habboon ee qaab dhismeedka dawladda aynu leenahay loo ballaarin karaa qaab dhismeedka dawladnimo ee ballaarinay ama hadda aynu qayb ka mid ah ay harta sheekhu maanta ka mid tahay waa qaab dhismeed si cilmiyeysan siyaasadaysan deegaanka Soomaalida Soomaalinimada lagu ilaalinayo jiritaanka deegaanka lagu ilaalinayo adeega horumarineed ee deegaanka Soomaalida dawladdiisu ay shacabka siiso loo baahan yahay in la gaarsiiyo goobihii ku habboonaa waa qaab dhismeed waqti badan la geliyay muddo badanna laga soo baaraan degay xilligii ku habboonaanay yimiday dawlad ahaan baan qabnaa guud ahaan waxaa maalmihii la soo dhaafay deegaanka ka socday kulamo mahadnaq oo lagu bogaadinayo go'aankii taariikhiga ee xukuumadda deegaanka Soomaalida ku ansixisay maamul magaalooyin gobollo iyo degmooyin lagu soo kordhiyay qaab dhismeedka guud ee deegaanka